kulantii waxaan wanaagsan dhammaan khiyaarta kala duwan ee dabcan hawada sida tooska mar walba iyo goob walba aan joogno nagala socotay ku soo dhawaada barnaamijkeeniis arag oo ah barnaamij inta badan lagu dhiirigeliyo dhalinyarada in talentiga leh oo dhalinyarada fikirka fiican soo gudbisa galabta barnaamijkeega waxa marti ku ah Farax Axmed Cabdi Cawad oo kamid ah haldoorka gobolka Cayn gaar ahaan magaalada Buuhoodle waa tuma Farax Axmed Cabdi Cawad iyada sukan sharaxaysa kadib ay soo noqon doona wareen iyo gudameynay mar walba Allah subhanahu wa ta'ala oo mahad kale rumeynay raacin rasuulkeena soo banaaba iskale marka xigta waxa sharaf iyo amaan iskale bahda Midaan Media waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa bahda guud ahaan bahda Midaan Media magacaygu waa Farax Axmed Cabdi kuna magac dheer Farax Koofiyad waxaan ku dhashay kuna barbaaray magaalada Buuhoodle waxaad waxbarashadayda gabi ahaanba ka dhigtay magaalada Buuhoodle waxaan hadda dhigtaa jaamacada waxaan ku jiraa sanadkii u dambeeyay waxaan wadaa 3 kuliyadood kuliyada caafimaadka kuliyada ICT-ga computer science-ka iyo kuliyada CDL-ka community development and leadership-ka sidoo kale waxaan hay maskaxdii ama fikirkii waxaan lahaa ururka horumarinta bulshada ee Handis waxaan ahay hadda maamulaha iskuulka aqoon kaab oo ah iskuul ay gacanta ku hayaan isla ururka Handis oo ah iskuul hadda jiro 3 sano isla 3 sano waxaan ka ahaa macallin sanadkii u dambeeyayna ama hadeerna waxaan ka ahay maamule sidoo kale waxaan ururka u ahay madaxa xidhiidhada gobolada sidoo kale madaxa barnaamijyada sidoo kale madaxa barnaamijyada khayriga ah runtii ururku wuxuu qabtay waxyaalo fara badan waxa markii hore fikirka ugu dhaliyay wuxuu ahaa baahi aan ka arkay bulshadayda iyo anigoo shiri maxaad bulshadaada u qaban kartaa maadaama aan ahay ardayad maadaama sidoo kale aan ahay gabadh maxaad la wadaagi kartaa ama waxaad baratay aad uga falcelin kartaa bulshadaada waxaan isiri kolkii hore anoo ku jira dugsiga sare anoo form 4 ah ba waxaan bilaabay fikirka ay ugu dhashay saacadii markaan iskuulka imtixaankii u dambeeyay TC-ga soo galayna waxaan ka mira dhaliyay fikirkayga qofkii ugu horeeyay aan la wadaagayna wuxuu ahaa inaan isla ururka hadda ku jiro oo runtii ila garab istaagay anagoo in badan labadeeda kaliya ururka ah waxaan qabanano ku qabano labadeeda kaliya qabano waxaan ka bilownay barnaamijka dhiirigelin ina ardayda waxbarata aan dhiirigelino jaamacadaha aan tagno anigoo waliba marka aan jaamacad gaarin laakiin inankii aan la wadaagay fikirka markii hore jaamacad dhiganayay iskuulada aan tagno kuwa iga hooseeyay kuwa galaaska dugsiga sare marka la dhiganayay kuwa dugsiga hoose la dhiganayay runtii markaad wax bilaabaysi ama markaas dhaasi wax ka guulgaad caqabado badan baa la kulmaysaa ay kamid tahay dhaleeceen inay ku dhahaan inanteer way waalan tahayba oo waxay leedahay waxyaalaan horumarinaya iyo dad baan dhiirigelinaya cidima maqlimayso cidina soo istaagmayso hase ahaatee waxaan eegaya waxay ahayd dhowrka qof ay dhiirigelinayay aad u mahadsan yihiin dadkii dhiirigeliyay ee halka ay soo gaarsiiyay ee ugu horeysa hooyaday kuna xiga aabahay oo runtii ayaga la'aantood aan waxba qaban lahayn hadaynan iyagu fikirkayga ila rumayn ayna waxba ii suurtoobi lahayn mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad hooyadayba u mahad celinaya oo mar walba ila garab taagan guushayda ila jecel waxaan soo qabanayo aan dhaho waxa dadkaas wax soo qabanaya iyo ogolaato ayadna aad iyo aad u mahadsan tahay xagag daawadayaal waxa daawanayseen in Farax Axmed Cabdi Cawad ay si guud iyo si gaar ah iska bartay guud ahaan in aqoon fara badan aynu u yeelanay waxyaabaha barnaamijyada ay qabato iyo barnaamijyada kale waxaan ognahay intii baraha bulshada la isticmaalayay in ay kamid ahay dadkii ugu horeeyay barnaamijyada khayriga beledweyn iyo sidoo kale qardho ay ka qayb qaadatay isku xirka dhalinyarada iyo guud ahaan ba cid walba oo doonaysa inay fikir kala duwan la yimaado dadka inta badan u dhaqaaqa dhalinyaradaas ay kamid tahay aad iyo doon ugu barnaamijkaas arag ayaa wuxuu kamid yahay barnaamijyada inta badan xoog saara qof walba oo dhalinyaro ah oo ku jira kaalmaha dhalinyaranimada oo doonaya dhaqaaq kala duwan inuu dhanka bulshada arrimaha bulshada ka sameeyo inuu barnaamijkani ku soo casuumo waxaan rabnaa Farax inaan wax ka weydiino barnaamijyada hadda idii qorsheysan qorshayaasha idii ah iyo waxyaabaha ay doonayaan inay hadda xilligan marka laga soo yimaado waxbarashada imtixaanaadka ku jiraan waxyaabaha hadda u qorsheysan ee doonayaan inay qabtaan baan Farax wax ka weydiin doonaa guud ahaan ururahan iyo gaar ahaan Faraxba aad u mahadsan yahay bahda Midaan Media mar kale iyo barnaamijkaas aragba
waxyaalaha u waaweyn aan rabno inaan qabano ka urur ahaan iyo ka shakhsi ahaanba waxaa ka mid ah isku xidhka dhalinyarada guud ahaan gobolka Cayn anagoo ku bilaabana gobolka Cayn kuna xijinana Sool Sanaaga Cayn kuna xijinana Soomaaliya fikirkana waxaan rajaynayaa inaan hormuud u noqon doono ka urur ahaan sidoo kale maadaama ururku urur yahay uu hay gacanta ku haya iskuulka waxaan rajaynayaa inaanu ciribtirka jahliga ee gobolka aanu qayb weyn ka qaadan doono anagoo la kaashanano dadka aqoon-yahanka jaamacadaha gobolka ku yaalo iyo dadka waxgaradka ee magaalada waxaan rajaynayaa inaanu sidoo kale wacyigelinta ka qayb qaadan doono bulshada sida waxyaalaha qaadka mukhadaraadka oo dhan anagoo isku wada qaadayo sidoo kale qoriga oo kale in qoriga la iska dhigo kale waxaas oo dhan waxaa kow ka ah oo qofku hadduu wax barto wuxuu iska dhigi karaa qoriga qabyaaladan uu iska deyn karaa laakiin waxaas oo dhan waxaa ama hooyo ah in marka hore qofku uu wax barto qof aqoon leh waxna ku dhici maayo qabyaalad sameyn maayo qorina qaadan maayo laakiin muhiimadda u weyn waxay tahay qofku inuu aqoon leeyahay ama tacliin leeyahay waxaa jira waxyaalo kale oo aan ka duulano oo ururku iyo ka shakhsi ahaan baan rajaynaa inaan ka midho dhalno kuwa iyo kuwa badan ba insha Allah waxaan rajaynaa inaan ka midho dhalin doono barnaamijyada faraha badan qaban doona hadii waa leeyahay waa hagaag daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena is arag oo ay maanta marti ku ahayd walaasheen Farax Axmed Cabdi Cawad oo ah maamulaha dugsiga aqoon kaab oo ay ah dugsi ay ku bartaan dad waaweyn iyo dad dhalinyaro ah dad wax haysatay iyo dad aan waxba haysan dadka inta badan saaxiibka dowla ah duruufaha kala duwan sida aqoonta iyo dadka aanan dhaqaale ay waxbarashada iskaga bixiya awoodin ay ka mid tahay dadka gudoomiyaha oo ah sidoo kale waa aasaasihii ururka Handis sidoo kale waa dadkii ugu horeeyay ee sameeyay barnaamijyada khayriga ah ee beledweyne iyo qardho lagu gudmeeyay dadka dhibaataysan ee fatahaaduhu saameeyeen barnaamijyo badan ayay Farax ka mid tahay dadka inta badan qaybtooda ka ah intaas ayaan ku soo gabagabeynaa anigoo ah Maxamed Axmed Jaamac Maxamed Bidaanshe dhanka farsamada iyo kaameradana waa Samiir Heersare barnaamij la mid ah is arag intaan ku kulmi doono salaamu calaykum iyo is arag dambe